كاتو سلامتا إسلامكا شريفكا نحريستا ربي كل حنتا هاي أيام كسلام يا دمان صوماليين تشرفت له مدرسة سقوط من النمية هبله ويلي وحجرة أقوياء المعلمين محنا سجارو بقادين يا سودوين يا مدرسة عصب اسمه وذاك إلى أن سبحانه وتعالى وحكبر يا إنه هنك يهمل الله أساسي إنه يوم السماء كده حياة أي وذاك تسوس كوك ينتظر كلام النقطة عرفتيها كالدوان الصومالي ذا ayaan rajeynaya aad baan u hambalyeynaya waanan la shaqeyn doonaa doo Allah weyn qadaro intaasi waa iga deeso dhaweyn runtii waxaan rabaa in aan wax yar ka taabto waxa la yiraahdo common ground ka ama barkulanta umadu waxa ay ku midowdo waxyaabaha umada mideeya waxa la yiraahdaa mar kasto oo ay bataan astaamaha umada mideeya waxa xoogaysta wada jirkooda tusaale ahaan haddii adiga ay ka soo baxaan laba qof oo cadcad oo cadaana oo kula mid ah bahayn laba cadcad oo aragtay macallin leegar kaga aragtay dhageyso haddii laba qof cadcad ka soo baxaan oo labada qof uu mid muslim yahay ka muslimka wuxuu kaaga dhow yahay kala Soomaa haddii labadaas laba qof oo muslim yihiin oo uu mid kula midab yahay mid cadaan yahay midna madow yahay ka madow waad xigsanaysaa oo waa midabka isku keenayo astaan labaad baad sii wadaagtaan haddii laba madmadow yihiin oo muslima oo mid Soomaali yahay ka Soomaaliga waa ku dhow yahay ka kale kaaga dhow yahay hatta dad isku deegaantiin waa kaaga dhow yahay labada qof saas way isaga sii dhow yihiin iska daayay labada hatta isku balwadaay way isaga dhow yihiin labada kale inta kubadda ciyaarta way garanayaan rag badan oo saaxiibada meesha fadhiya laga yaabaa intaad sheeko wadaagta tihiin isku fikradda tihiin ama aad isku balwada tihiin ama yani balwada waxay noqonaysaa waxaad wada xiisaysaa waad isaga dhowdiin dadka Soomaalida markaa waxa midaysa wax kasta oo dad bini aadana uu mideeyo way mideeyaan Soomaalida iska daa wax kale dhadhanka aan mideeyo dhadhanka midab yani dhadhanka waxaynu cunayno way ina mideeyaan waa tastiga aynu cunayno yani waxyaabahan cunayno tusaale ahaan labadeena aniga jaajo hadaan maqaaxi tagno oo aanu maqaaxidaasi taalo waxa la yiraahdaa sambusa haduu yaalo أنا حتى بس لا معوني لكن بس سامبوسا سوداني يصير نوود دردمايو نين Chinese أو مقاهي فردي سامبوسو ما دردمايو ركاو دردمايو وحلا يابا هدي وحنا عنانا محلي هذا عيان كاي إن اللبضة Chinese كاي سكسي دردمايو أنا كويستان لكن أنا وحلا يابا أنا سكلا دردمين oo aanan deebo ku dhiiranay beenan marka midab hatta dhadhanku waa waxa umada mideeya weeyaan wax kasto walaalayaal ina mideeya baa jira jaaliyadu hortu way nagu bateen ururadu way nagu bateen laakiin waxaan u baahanahay inaan jaaliyad guud helno baan u baahanahay Soomaalidu waxay u baahan tahay hal jaaliyad oo xoogan oo ay isugu timaado oo wax garadkeeda iyo dadkeeda oo dhan ay ku mideysan yihiin ka madax banaan qabyaalada iyo siyaasad bay u baahan tahay baan anigu aaminsanahay markaas uu codkeenuna shaqeynaya awoodeenuna shaqeynaysa laakiin 150 jaaliyadood oo wax walaalayn waxay qabtaan aan jirin qofka ugu weyn furana uu hamigiisu yahay inuu furo meel turubka lagu ciyaaro umada ma anfacayso umada marka waxaan u baahanahay inaan madashan iyo madaha la midka aynu weyneyno dadka aynu dooranay inankii markii dhaweeyta ka sheekeynayay barnaamijka iyo yoolka ay higsanayaan ururku waxay kamid ah dadka aan doorano xataa codkeena ku tagay meelaha de ma garanaysaa dawladda iyo golayaasha dawladda inaan soo fariisin karno oo aynu la xisaabtami karno wax weydiin karno weeyaan dad badan baa ninka siyaasiga Soomaaliga naftiisa buu dhisaa laakiin dalkiisa lama dhiso umadiisana ma dhiso wallahi waa iga run waligiin iyo alihiin meeyno aragteen nin siyaasiya ama qof siyaasiya oo ku hawlan inuu umadiisa dhiso ku hawlan inuu maxaa la yiraahdaa garoomo furo dhalinyarta maxaa la yiraahdaa criminalka ka shaqeeya haduu wadankii joogo xataa yani wuxuu gashadaa credit-ka uu gashadaa naftiisu dhisaya waxa uu u socdaa waa inuu isagu meel gaaro madaxweyne noqdo wasiir noqdo halka noqdo isaga is dhisaya iska daa wax kale xataa hadii uu tartabay oo tartanka lagaga guuleystay CV-giisa u galaysaa markii halkan oo kale la soo fariisiyo wariye wareysanayo waxa la oranayaa waa musharax kamida musharaxiintii hore berigii tartantay CV-giisa ku jirtaa hadda maanta waxa wareysanayna jaajumo oo kamida madaxweynayaashii rag kamida rag isku sharxay yani waa tusaale oo ogaayna noqonayna anigu waa lagtahay inaga
marka waa qof naftiisa oo dhisaya laakiin aan ummadda u howlanayn inuu dhiso marka waxaan u baahanahay dad fikrad ka duwan keenaan u baahanahay hadduu alla idmo insha allah de waan sugaynaa nin musharaxa inoo iman doona isaguna golaha baarlamaanka Yurub u socda waxaan weydiinaynaa waxa weeyaan 3 qodob ba ummaddu dadka wax noqday ee aflaxay aragtidooda ma aragtay socodsiiyay 3 qodob baa muhiim oo gondogu aba la yiri moogta qolo waxa la yiri deynow waxay og yihiin waxay sameynayaan ay og yihiin waxa ay sameynayaan ayay garanayaan qaarna waxay garanayaan sida ay u sameyn lahaayeen qaarna waxay garanayaan sababta ay u sameynayaan waxan qofkaan baa markaa guuleystay tusaale ahaan waad shaqaysataa shaqaad aadaa subaxii waad kacdaa maxaad u shaqaysanaysaa waxaad u shaqaysanaysaa inaad naftaada iyo familkaaga iyo qoyskaaga aad kaafido waad cibaadaysanaysaa waad tukanaysaa waxaad u tukanaysaa u cibaadaysanaysaa waxa weeyaan inuu ilaahay cadaab kaa badbaadiyo there is reason baa jira qofku sabab baa jirta oo wax u sameeyo ayaa jirta marka musharaxiintayada iyo kuwa ururada noocan oo kala noo furaya waa inay leeyihiin yool cad iyo aragti cad oo bayaan ah oo muujinaysa sababta ay waxaan u sameynayaan hadduu qofku urur u furayo inuu dhaqaale yar ku sameeyo oo uu ururkaasi u furayo in uu dawladda wax kaga qaato waxa weeyaan waa dhicis waa fikrad dhicis oo meel gaarin weeyaan hadduu qofku isku sharaxayo inuu isagu wax noqdo waddanka madax ka noqdo oo magaciisa kor u qaado wax isaga ku kooban oo maaragtay isaga unaan dhaafin waxaan u baahanahay marka qof waxa uu sameynayo iyo waxa uu isku sharaxayo iyo waxa uu meesha u tagayo cadeyn kara isla markaana baahideena iyo duruufaheena ka turjumaya intaas baan u baahanahay baan u maleynayaa daan gabiyo de waa iska tarreegleynaya maanta dhan iyo iska daaga bay wad ad wax leedahay adu wixii noo soo tala gashi dheh ka badiniya wax gudarin hees playback rawana qaadanayo hal haan adi maxaa u warmays ana din alay waa iska heesi laaylo waxa la dhaafir hordinka doorto saana la yeelo waxa la dham warmays ma waan aragnaa aan aragno de qofka iska doorta miyaan dhahnaa dal ninka la dooranayo waa ina waxa soo qabtay la xal saarno adi ruuxaas niman badan bay saxma dibacdi u dhacayno masaajidkaas antay ninay arbac jajuwa madukataad ana naxsan madukatad miya ana baya masaajidku arkad madukataad oge masaajidka joogtaana marka waa yaabi u sii wax kala ma dadkan wadaadadeen ma khaldan umka ma khaldan waa yaabna ma dadka mentalitigooda khaldan wax kasta waa noo hormareen kuwa xamar joogan inay nabiga horeeyay ku malaayeen kuwa yurub joogan adima dukataa ugu duway macalad saas ma jirtaa mid kale ku sheegaya wali qof ma kugu yiri heesu waa dambi iska daa heeska aayad kale maya aayadda ku dambayso oo intuu ku yiri waxay ogal yihiin inay dhageystaan kuwan carabida maaragtay heeskaas macna mana ka sayo way macna iga luuqsay u galaan laakiin wuxuu ku leeyahay su'aalahan aniga nin saaxiibkay oo xasooda leeyahay magaalada degan baa nin baa maalin maqaaxin lagu qabto markaas wuxuu yiri heeso waa caynkan waa tabtan waa waxa weeyaan wixii dambiga waa dambi oo taasi waa cad yihiin oo madasha iyo meesha lagu kulmayo iyo ummadda iyo fusuqaas la diidaya haddana wuxuu yiri ina mariya gaarigiisu nagu qaaday markaan dhaqaaqnayna gaarigu markuu isjido maaragtay heesti ku jirta soo baxaysa moogta markii uu gaarigii istaaray oo uu shidayna beledweynaha ka shidanba يعني isagani wuxuu ku leeyahay in la heeso marka uu yaqaan dambi laakiin la dhageysto isugu meeqa waa dhageysanaya anagana wuxuu leeyahay ka gudub iska dhaaftooda taale ma sidoo waxa leeyahay garaabla Soomaalidu waa dad socota oo safar badan oo aad iyo aad tahriibka aad baan ugu dhibanahay waxan baa inoo hira dad waxaan reeguuraayeen hina walba marka maraan halkan ka tagoon Mareykanka aaday baan Latin America anoo maraya baan maasadan sameeyay Guatemala waddanka la yiraahdo baan bilowgeedu ku sameeyay kadibna xabsi ku yaala Mareykanka ku dhameystiray waxay ka turjumaysaa Soomaalidu waxa ay tahay marka ummadaha kale la dhaqanteed runtii oo dadka kale aragtid sida ay yihiin waxaad ogaanaysaa inaad tahay dad fiican oo goba oo qaaliya inaan nahay baad ayad ogaanaysaa waxaad ogaanaysaa in waxa aynu wadaagno iyo naxariista Rabbi ina geliyay inay wax weyn tahay runtii waddankeenu uu burbursan yahay haddana dee waxa weeyaan Ethiopia oo weligeed yaalayn colaado iyo afgambi dee burbur aanu ka dhicin baad waxaad arkaysaa dadka tuugsada ee gidaarada taagtaagan inay fara badan yihiin oo ay la mid ahayn dadka Soomaalida dad wax istarayno nahay waddankeena dhaqaalihiisu import export wala malaha waxna ma dhoofino imika
waxna lama geliyo oo waxa weeyaan waxaynu inagu dee ganacsatada iyo $100 halkan laga diro baa carruurteena wax ku bartaan marka dad iskacan qabta baanu nahay markaad Soomaalida eegtid waa isjeclaanaysa diinta markaad eegtid kiniisadaha markaad gashid tusaale ahaan maxaa la dhahaa bariga waddanka yimid baa waxa noo yimid nin baadari ah oo dadka Soomaali furmuqoonka waxa la yiraahdo bulshada na tusayay markaas wuxuu ka sheekeynay gay marriage waxa la yiraahdo inay raggu isguursadaan in uu isagu aan wax weyn u arkin marka waxa soo kala aragtid diintaada jeclaanaysa yani caawiyaan waxa tahay baad jeclaanaysa marka maansadan markaas aan qoray garaabla baa la yiraahdaa waa rajaynaya inaad iska fahmi doontaan haddii Allah weyn qadaro waxay ka hadlaysaa oo sida aan uga xumaa inaan dhulkayga iyo dadkayga aan ka soo fogaado isla markaana aan u jeclahay inaan ku laabto ilaahayna nagu nabad celiyo iyo sida aan u ogahay Soomaalidu waxa ay tahay yani qiimaha ay leedahay baan xoojinayna waana meelaha loo baahan yahay inaynu maaragtay xoojino ka hadalno Soomaalidu waxa ay tahay sida ilmaha Soomaaliga ay uu isku jeclaado oo fariinta loo soo gudbinayo oo ah wadankiisu in wadan burbursan yahay oo dib badan oo maaragtay kala kacsan oo fool xun oo la isku qarxiyo maaragtay aragtida inaan tirtirnaa rabnaa ma fahanteen wariyaha Soomaaliyeed aan barno inuu soo gudbiyo arrin maaragtay fiican arday qalin jabisay meel la furay dhalinyaro iskood wax u qabsaday aan noo soo gudbin qarax ka dhacay meel untay ma garanaysaa iyo dad la is afduubtay iyo burcad badeed ma garanaysaa dareenkayga u gilgilo godlo xiska guuran dalgooda sidii guulaama roob geeraarka afka u daroor araaraha kugu gingiman u hoori sidii gudgude tixdayda gama u diidintii gabadhaadii gasiin maansad u tahay tixaanku tamaale iyo gudaha Honduras ku furay oo aan god ku yaal amri ku soo xiray Garisden golaha aan soo dhigay bulshada gaawaha u xulo gacalka rabbiga oo ku Soomaalida lagu galabay astaamaha guuldalka gobteeda mid baan ka oran waayahan gadgadoomay iyo dunidan guud quruxsan taamisana guda fool xunta mar baan garab daaraya gunaanadka maansadana garbaan naqayaa ku naqana fangar wadaan u ahay waxaan kala geynayaa waxaan ka gabyaayo iyo waxaan u gooleeyahay waxaan guntayaa sarbeeb gadaan maray Soomaaliya waxa garan kara abwaar ama ruux garasho dheer inta waa gogol dhigaan garaabla ku iba furee gacalka rabbiga unkiyo gobteeda waxaan ka iri bulshanahay geeska gees gaarisa bay gadiya xamar nugaal godan gacanka cadan ilaa guban gabilay xeeb galaadiyo goday degtee geyga Soomaaliyeed ku yaal geeska Afrikaad miyaanu ka guureynaa bulshanahay gacalo oo dan guudi midaynayso mid gaar ah wadaagayso gabiga ruux qura oo dunida iska garanayso inta isku guurayso guriba kii kale yahay miyaan kala guureynaa bulshanahay guuna oo murtida gaala baxsho ku caan baxday gabayado god iyo maahmaalo geed hoosti ku xaasho oo taariikhda gadal loo dhaqata geel iyo fardee miyaan dhaqan guureynaa bulshanahay goomano gibliyo dhaantiyo wigliyo galbiska beereyda liyo saylic gama ka jirtiyo gogoos iyo luuq laho heelooyin gardaadisee guboodaay oo nimcaa dhalinta guuxada tuntaa intay isa saarta garab markay isu geysa jiib galowga xiisaha kaca codkooda ku gaardiyay miyay gacaloodkoy cayaar igu gaarayaan bulshanahay goostambeed islaamnimo lagu galabay imaamka ku geegsatee dirkayga hanuunku galay sunna ka shawgu guntane gartaa waxa uu ku jira miyay u gudboon yihiin garaad sanam caabudiyo gaalada weynaha kufriyay bulshanahay gaari xula gashaantimo daahir iyo gayaan iyo hooyo leh hablaha geeyooyinka guduudana dheeha wacan miyuu nin kastaba gayaa ama samida guurayaan gumaysta curyaansho iyo bulshanahay geesiyaal gumaysta curyaansho iyo bulshanahay geesiyaal hanada aar gudo laho garaad wiil waal dhalo gadi Axmed Gurey haliyay u go'a gobonimo laho gabyaagii timacad iyo darwiish guubaabsho iyo xarb iyo godka lagu jannee rag galay taariikhda leh gooshaalaha geelabka libaaxa geeska Afrikaad miyuu isir guuraya inaan isku soo galbiyo hilbiyo gacal wada dhashaan anigu u goleeyaho inaan gujiyaan rabaa ninkii kala geeyay oo gidaar baan duminayaa gumaystuhu waa dhiso libaan dib u goobayaa cadaawuhu gaagaxsho guul baa weli iga qabyaa garoof maran baan sitaa geel baa iga maqan irmaan gaajana waan heetiyaa godobta iga maqan ayaan ku raad gurayaa tixdoo waxaan gabayga ugu furay gashiga maqan baadi doon god baan eexdii ku riday dulmiga gees baan ka maray garsoorka hadday duwaan cadaaladda gowracaan inaan gobonnimo hantiyo naftaanba u goynayaa geerina waxa mudan xornimo anoo gaban oo yar baan adduunyada gooshayo bulshay gaal iyo islaam markaan dayay gun iyo baar dadkayga u gacalayaal gob iyo nasab baad tihiin garaaliitiya hanyare ayaa idinkala gure xigtiya gacal baad tihiin
geed iyo xidid baad tihiin guntaad ka midaysantihiin qayina waa kaa degtay guulaystoo wada jir oo ilaah garabkiina joog gintay afartaa ka gudub mid kale gaawo ah u culo kashii gaajada qabtaay godolka suugaanta maal ku soor qalbigii gurnaa waayuhu waa geli bacayn giraan weeyaan wakhtigu dunidu way guurayso galaba meel bay degto u geedgeeday ahayd adduunyay geli bacayn maxaa ruux gibil madow amase mid guduud cadxiga amase midka gooniyo gadaas labadaba ahayn dushaada ku gaaftuntaan adduunyay geli bacayn gidaar madax lagu ruxruxo yuhuudda garmoodaysiyo katooliga geyga yidhi ha guursada gey kaliyo masiixiga loo galbiyey samada guudkeeda sare nasaarada goobaysiyo kurtumo geeduu ka jaray buriistaha gacashadiyo hinduu geesaha lo-aad gacmaha wada hoos dhigtiyo maxaa gaal iyo islaam guudkaaga insaan ku nool adduunyay geli bacayn maxaa dhacda gaamurtiyo dushaada gabood ka dhacay muxuu gaban kugu dhashaa midna kugu guursadaa muxuu ruux kugu dulgo-ay godkiisuna kugu dulyaal maxaa mid gaboobay iyo mid aan qaangaarin weli geerida kugu dhowrayaan maxaad ku carada bishaa gumaysaa waayo arag maxaad ruux gacan marnaa gudhnaa aad doojisaa gubaysaa liidanaha maxaad ruux geel lahaa dhadhami gaajada tidhaa maxaad kala geysay laba naftaba isku goyn lahaa xasuusta markaan godliyo gadaal waayaha u dayo intaan gooshaayay duni dareenka waxaa gilgile ka sheedana aan ka gurin odaygan waxaan kula kulmay magaalo la yidhaahdo soodaraam oo yaabla ku taala 5 caruur soo qaatay oo la soo galay wadanka 5 tiro waa laga qaatay 5 caruura markaasuu gidaar fadhiya marka xasuustiisii bay ka sheekeynaysaa maasada yani tudcani xasuusta markaan godliyo gadaal waayaha u dayo intaan gooshaayay duni dareenka waxaa gilgilay ka sheedana aan ka gurin dhacdadan aan guud cadaa gocday waayeel ka qoray wuxuu yidhi gacaliyow markuu qarankii galbaday gabano dhowraa la qaxay anoo goobaaya nolol waxaa ii haadsay gacan dir aanu isgaari jirin dameeraha iyagu isgeyin ilan waa geedismaris wuxuu yidhi hoy gobeed inaan kuu gogol dhigiyo galbeed baan kuu wadaa guddoon idhi baahidii gargaarkusi aadanimo kamuu wadin garab qabee ilan ku goobay ahayd gashigu dayn buu ahaa gurboodkaygiiyo dhashiyo firkayguu gaadayo wuxuu gurtay aayihii ifku igu gabana tiray gundaha xeer baa ay jiray garsoor baa laygu dhacay guyaal hore lay qorto dhulkaa iga eex guntaday waxaan ahay ruux goblana misna dhalay guuto ubad buu yidhi waxaan ahay ruux goblana misna dhalay guuto ubad waxaan guraaca u fakeray markaan idhi geel ku dhaqo ban aan geedaba lahayn gardarro garab haysataa cidina kaba nabad gashee waxaan gudnimada hantiyey markaan gaalada martiyey wuxuu gacaliga ambaday markaan degay goob ka dheer haddaad tahay aargutaha haddaad tahay guuldhashaha haddaad tahay geeldhacshaha markuu rabo goosha dila waxaad baqagoojisaa markaad geyi doorsato ciidaad geesiga ku tee markay tahay gegi qalaad waxaad goysaa yaraa waxaa laga yaaba waddankaagi markaad joogtid inaad qof geesi ahayd ciiddaa waxay keenaysaa inaad geesi noqotid dhirtaa maaragtay yani aan berigaan yaryarayn aan goran jirnay tiintiinka iyo waxaasi waxay kaa dhigayaan qof geesiya laakiin halkan oo kale haddii aad ahayd nin 100 soo dili jiray xataa fulay baa tahay waxyaalo waxay ciidaadaan geesiga ku tahay adduunyay gelin bacayn markaan raadkaaga guray intaad iga tuurtay gebi maxaan cashar kaa guntaday gaaroodi halkay ku tiil maxaad Gothenburg ku qoro guubaaba habeeni tiri adduunyada xorta wadankiiba iska iloow reeyta boori baa tahay halkan maxaad muqdisho ku falaysaa halkan aad iska joogsaa ciyaalka yani waa adduunyada yani shaydaan baa ayaa ku wada maxaad gadashada sinjiga libtaada ka goobi tiri adduunyay gelin bacayn gaaniiska maxaad warqado ku raadsada geeyga tiri maraykanka markaa ku ilaawaa nimanka gaaniiska la yiraahdo ayaa gabigood waxay isku dhiiban yihiin inay xagga dambe jeebad ku leeyihiin si kala dambe hore gare inay niman dee laga ronayaal yihiin markaas inuu muslimaan tahay maxaa waxaan isugu dhiibtay markaas ku look brother God is looking hard halkan ilaahay eegayaa buu ku yani ilaahay meelaha dambe waxaad isku dhiibtay waxba kama gelin halkan buu ilaahay eegayaa oo miyaan ahayn nabiga sallallahu alayhi wasallam lahayn war man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum haddaad iska dhigtid soo ka mid ma tihid maxaa keenaysa damaca adduunyada keenaysa iimaan la'aanta keenaysa inaad noqotid xataa waxaadan u dhalan aad iska dhigtid adduunyada gelin bacay
maxaad gaday sida jinjiga libtaada ka goobi tiri gaaniiska maxaa warqado ku raadsida geega tiri shaydaankaad garabsataa ibliiskaad gacal la tee maxaad gaal sheega tiri galaafatay ruux muslima qof baa isku dhiibay inuu gaal yahay isagoo muslima ilaahay wuu ku leeyahay qalbigayga anu muslim baan guriga ku tukanaya laakiin warqadan kaga soo qaadaya adduunyada gelin bacayn adaageed ugu tigtigay gardaadubka ii xidhxidhay gubiyo labada i xanimay sidaan ahay gacan ku dhiig xabsiga ii soo galbiyey ubixii aan goysan rabay guduudnaaya casaa gudaafadina inuu ka baxay ma garan maankaba ma gelin guyaal haantaan ku waday galaamaha iyo biyaha ee aad gacalow i tiri gabaad jiilaal ka dhigo gudaha goortaan u dayay ileen goror kuma jiro guntaad ka dilaacsanayd markaan kore geedka dheer guluubkaad ii shideen guclaha orodka ugu tegay markaan gaaruu baktiyey wixii ila guud wacnaa guriga u ekaa qurxoon gudaha goortaan u galay god buu noqday halaq fadhiyo u guur meeshaadi tiri gubaa helay aan lahaa goortaan hayinkii ku furay ileen kuma yaalla geed daruurta galbeed ka timi geyiga way doojisaa garaadka ee yidhi xumaa gafkayse anigaa lahaa geediga raraysahan la-aan waxaa garta layga helay markii aan bergii aan samheelka dhigan jirnayba waxaa la ii dhiibay 5 karoon in macallin oo Swedish markaasuu wuxuu yidhi 5 karoon dowladda iyadaa leh waxay intaasay goysaa waa nacnac bay goysaa waa bir waa lacagtuna beriya waddanka deetana bowsir baan galno 5 karoon baan ayaan tuuray deetana uu yimid wuxuu yidhi maxaad u tuurtay markaasaan ku yidhi wuxuu yidhi marka qaata buu yidhi markii hore qaata 5 karoon idinkaa leh waan idin siiyey 5 karoon markaa tuuray markaasuu yidhi maxaad u tuurtay markaasaan ku yidhi dee soo imaad siin waxa anaa leh waan tuurayaa soo imaad ma lihid buu igu yidhi wax adigu waxaad leedahay ma jirto inan yarna wuu ahaa wuxuu igu yidhi waxay kuu goysaa leedahay hadday nacnac kuu goyso nacnacaasaa leedahay haddii maxaa la yidhahday 20 karoon baska lagu raacayo 15 haysatid oo 5tii aad ku darsatid waxa adigu kuu goysaa leedahay laakiin birta buu yidhi birta annagaa iskale buu yidhi dowladda iyadaa iskale lacag waqti baa la geliyey qof baa alifay mid baa u soo jeeday mid baa garaacay waa hanti ummadeed oo dawliya weeyaan buu yidhi inaad tuurtid maaha buu yidhi saaxib marka innaga ka waran yani waxyaabaha yani ay gaadhay ummadda horumarkooda meesha ay gaadheen bay kutusaysaa iyo hantida ummadeed waxa ay tahay ayay kutusaysaa innaguna waxaa laga yaabaa shilin soomaaliga inaan iska jeexjeexno aan waxba inoo ahayn maase waa igu dheertahay waa soo gabagabeynaya halkaasaan ku xidhaya waxaan umaleynaya waqtiga dee dad kale iga dambeeya haddaan hadlo aniga kuu sheegaya iska tururugleeya sii wadaad baasha laxamay laxan saaray markii war dhahday baday waa socoleeyay waxaa garta layga helay anoo gini haysta shilin markaan gamay tuuryo dheer ee uu gaba naqani yidhi qof yow ciidiisa gubay goyaadkaa leedahoo birtuna goonayay tahe gaboodka ka daahantida wiil waxaan anaa iska leh iga daaduyo marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa la salaamayaa waa ka baxayaa waa haddaan wado waa iska tururugleeya maanta laakiin bahalka markii tiri maraykanka macnaa xabsiga kale geeskana ka maqla duq tahriiba saay waa tahriib wala soo wada tahriib caadi iyaga ma diyaar ku yimideen wala soo wada tahriib laakiin waa qisooy yani waxa weeyaan qofku inuu taariikhdiisa iyo waxa uu yahay dambi uma xidhnayn laakiin yani waxaan kuu sheegayaa racadale lagu qabtay